cisbiitaalka dhibirka ee magalada hargeysa ayaa deeq mustayaalahay waxaa gaarsiiyey shirkadaha somcable iyo sidoo kale SO iyagoo kaashanaya ardayda kuliyadaha arrimaha bulshada ee jaamacadda gulis waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay madaxa xiriirka dadweynaha shirkadda SO iyo somcable mukhtaar nuur. marka runtii waa taariikh iyo taageero rajo cusub ku abuuraysa bulshaweynteena gaar ahaan inta jilicsan leh oo waxay dareemayaan inaynaan ilowsanayn markasta oon qalbiga ku hayno ayay dareemayaan inteena jilicsan leh waan ugu hambalyeeynaa ardayda jaamacadda iyo maamulka jaamacaddaba anagu company ahaan intani waa deeqdeedii inta halkan taala waa deeqdeedii cid kale oo la wadaagaysa ma jirto anaga ugu deeqnay bustayaashan dhakhtarka laakiin iyagu waxay mahad gaar ah ku leeyihiin inay arintan soo gaarsiiyeen oo wataan ugu mahadnaqayaan lahaay marka aqoonteeni inay noqotay wax bulshada u adeegaya wax aad loogu farxo runtii. si kale waxaa halka hadalka iska daba qaatay xuseen axmed xaashi agaasimaha maamulka lacagaha iyo dhinka ardayda kuliyadaha arrimaha bulshada ee jaamacadda gulis. meeshan joognaana waa dadka ugu jilicsan dadka cisbiitaalka jooga si kasta qofka xanuunsada hadduu xiskiisa qabo ismaamulayn qofkan wuxuu waayay halkii ugu qaalsanayn mana noola mana dhiman reerahoodii markii dadkaasi uma tirsana qofka cisbitaalka lagu tirsay qof quraato saaka loo yimid ma jirto cuntadooda shaqadooda maydiskooda dharkooda waxa dhan cisbitaalka qaba dadka kale waa dharka wada joogo dhan ehelkoodii baa subax kasta quraacda iyo qadada iyo raashinka u keenay waa dad tirsan xanuunku doonaha qaba ahaan inaanu siin doono tababar shaqaalaha qaybta dhimirka ka shaqeeya ka arday ahaana waxaan u ballan qaadaynaa inaanu u soo diri doono arday isla markaana aan u soo xullo oo wiigii hal mar counseling siin doona ka neefin doona la sheekaysan doona laakiin tan special waxa si gaar ah ugu amaanan oo maanteeda lala wadaagayn shirkadda somcable waxa jira xamse dabar television Star hargeysa.